وعبد حسن فري الله نكر أنا شكري حسن فري هذا ولالك 8 سنة 6 سنة يوصل هاي سنة كسجارة وصعد وبلوين أنك قادن تدا 4 سنة استالك كل جرن نهض دريال كهله مجرته ودباتي سيني هاي هذا هذا هو شوك بيكو قادي ولا لي إهل ما كرتها مجرته walaalkay maxaan ka hoosanaa dadka Soomaali meelay arkaan walaalkay maxaan ka hoosanaa la daryeelay mana hooyaday shoog bay ku qaaday waxa uu qabanayo Soomaali haddaan oo maxayada oo gargaar Soomaalida meelay joogto inay noo daryeelaan oo Ilaahay dartiisa noogu caawiyaan 4 sano maxaan ku jirnay istaalka xaafadda in 11 baan ku soo bixinay waxana garab taagan iyo wax walaal helma qabno وأنا أركيسان هويدي أشوق قادي ولا الكلا إلا دشوا ما أنت قحوتي إلا النول مجرت وحنا هيستي المهي ما يعني وحنا كلام أقعد من وحنا هيستي أود دي كارك الراشين كان يجمعنا وحنا سيا وحنا أود من مجرنا بس كسامالي ده مالا كعصنا هيا ود السامالي أنا مالا إلى درتي صح يقول فلان بأم باهان هاي مالا يجوعان بمظلمين ولا حسوا مالا كعصنا ولا الكواركتان Soomaaliya walaalkay waa aragtaan ina walaal daryeel ma haysto wax ma haysto way hooyaday ku xanuunsan oo deesho gaban imaanin baqaylinaysa meeshan kor joogta ma walaalo meeshan waxay ahayd u daryeelo mala Soomaaliin hay'adahana waxay ahayd wax ma uma qaban karnay deen anana awood waan u waayay Soomaaliya meel ay joogaan هذا Soomaaliya meel ay joogaan inay wax noo qabtaan barna Ilaahay dartiis wax nooga qabtaan walaalkay waa Cabdi Xasan Baray anina waa Shukri Xasan Baray xaafadda in 11 baan ku noolahay nee walaalkay uu dib qaba wuxuu naga cuno ma jirto ambulada qalalneed oo maxay ahayd kaar laga qaadanayo wax uu awoodo ma laqi karo awood uma hayo hilib in waxna macaya dhinaan buramana dhinaan uma hayno dadka Soomaaliya meel ay joogaan wax daryeel oo wax ugu qabto waxay ahaataba inay waxa uu nagu soo taraan baa u baahan Soomaalida dil iyo dibad meel ay joogaanba walaalkay daryeel ma haysto yaday joog bay ku qaatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ولا لها مسلمين تأه waxaan ugu yeedhaynaa ninkan buka ee bestii ah ee aad arkaysaan bidhaantiisa iyo nabraha ku yaala ay halkan kaga yaalaan oo lugihii ay saan noqdeen oo gacmihii saan noqdeen gabadha walaashii ay noo sheegtay muddo 8 sano iyo wama zaada oo sanadkii 9aad hadda ay u socoto inuu halka yaalo qaxooti uu yahay isbitaaladii qaxooti uu waxba ka qaban waayeen wuxuu cuna iyo wuxuu cabo iyo wax lagu daaweeyo midna ma haysto wuu dhibaataysan yahay waa walaalkiin aad buu dhibaataysan yahay runtii aniga markii gabadha walaashii ay ooyday baan iska ooyba qalbigaygu hadda caadi ma aha bidhaantii soo markii hore aan ka walwalsanaa iyo gabadhii hadalkeedii marka barakallahu fiikum walaalaha muslimiinta waxaan ugu yeedhaynaa walaalkiin halkaas uu yaala wuu dhibaataysan yahay wuu bukaa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa arraahimuuna yarhamuhum arrahmaa يرحمهم الرحمن هل ترزقون وترحمون إلا بضعفائكم وحويان وضعيف كاميش يالا مسلم كأدباتيسان قاتشيسان حنونسان أومن دبان قحوتيغا ساو يالا كاديدي سي هلكا ايتالو ما دقاقي كرو حبنيسا ما دقاشن كرو هل حبنا ما دقاقي كرو انتا افكا ابو كنول يحي سيدنا لو شيغي انتي كالودان داولان iyo daryeel la'aan iyo dhibaatay sida la noqdeen waad arkaysaan qofka meesha yaala sida uu yahay waad arkaysaan
walaalayaalow dareenka islaamnimo ha idin dhaqaajiyo qofkii wax heli kara hor ilaahay habeen aakhira ha geysto waa nin Soomaali oo muslim oo walaalkiin ah muslimiinta oo dhan baan u baaqaynaa inay gacan ka geystaan khaasatan muslimiinta Soomaali ayaga garanaya oo fahmi kara dhibaatada meesha taala iyo waxa meesha yaala way fahmi karaan barakallahu fiikum culimo kala ila joogta oo iyaguna dareenkooda iyo maartay diintaba inay ka hadlaan raba Allah idin barakeeyo soo degdeg oo u soo dhaqsada si dhakhtar loo geeyo oo loo qaado oo maartay mustashfa loo geeyo oo caafimaadkiisa iyo daawadiisa maartay loo galo hadda wixii ka dambeeya barakallahu fiikum wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والله المسلمين دافع عالم كمال الله لم يجي كجوجان حقيقة وأرن آدي آد لوجو أويو وأرن آدي آد لوجو دنقضه روح نوله ولي عمري سؤالا ولي أفرتن كأنا قارن وساوي لو مال والبكاكو قاي ولا شيء سأشكتي سجال سنة habeen habeen ugu xigay maalin ugu xigtay ila kacan ku fashay qofta inta leeg ee ka daba hari weyday ee aan ka rajo go'in waxyaalo laga ooyo oo laga danqado way inay tiraahdo waxaan kaliya maanta u heli karo waxa weeye wuxuuna walaalkay cuni karin oo hay'adaha laga qaato oo qoxontigan laga qaato wixii inta u dhaafsanan qofkan aan ku daryeeli lahaana uma heli kari wayna ka ooyday maalinta qiyaamo waana la weydiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waqifuhum إنهم مسؤولون إلهي وحن كبر يا إنه إلهي سبحانه وتعالى أود أولي إنه إلهي سبحانه وتعالى هذا كن فيكون إلهي إنه كعافية وليه لكن أنا لكفيرنا أنت ما أنت وحيسته إلهي سبحانه وتعالى لقال يحوق يا عقل بيسوق دري وحيكتر لهاي أنا ما أنت لكفيرنا مركب حن ليه أنت ما أنت قيامنا لو يدين لها أما قفل بلو يدين لها أنه ما أنت ندحيا لا أنه دعاء بانكو كبكرنا waxaan maanta ku dhaano waa dhaqdhaqaaq xiriyaha qaxoontiga aan maanta aan joogno waxa la isku dhaamo waa wax yaroon aad u fara badnayn ninkan wuxuu u baahan yahay daryeel macluul baa haysa xanuun baa haya waa ninka weyn oo hadli doona waa nin maanta qofkii ficiisa ahaa oo la tartami lahaa adduunkan qadar ilaahay baa ku dhacday qadar allah wama shaa facal ilaahay baan ugu mahadinayna waxaan dhihi lahaa walaalada muslimiinta lab iyo dhadigba meel allaala meesha ay caalamka ka joogaan dareen inuu Soomaalinimo dareen walaaltinimo dareen islaamnimo xoolahaaga meeshaad ku bixin lahayd maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaaga abaal marin lahaa taagan tahay aan ku gabagabeynaa xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wa sallam man faraja kurbatan min kurab ad-dunya an 'abd min kurab ad-dunya faraja Allahu anhu kurbatan min kurab al-qiyamah yawm al-qiyamah kurbadna maanta walaasheen haysata waxay la ooyday la gariirtay maanta ay u hadli kari weyday kurbaa ku taagan ruuxii ka feedi lahaana adduunyo aakhiraba waa looga feedi lahaa walaalada waxaan dhihi lahaa xoolo iyo hanti waxaad haysataan meeshii ugu munaasabsaneed wax ku qaban lahaydeen ayaa maanta idin hor taala waxaan ka codsanaynaa in insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsaha badan in walaalkeenan jawaab laga soo bixiyo insha Allah ta'ala wariyuhuna jawaab aad u qiimo badan oo muslimiintu ay ku farxaan tan murugta tu farxada inay xigto ayaan aad iyo aad u rajaynayaa oo duubitaanka ayaga kale inuu noqdo dareen lagu farxay oo ka muuqada in walaalkeen loo gurmaday aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka barya